hadduu ilmahaasu 6 bilood ku dhasho iyo 2 sano oo nuujin ah ayay la rafaadsan tahay cidina aanay ogeyn xaalkeeda dhibkeeda aabbuhu waxaa laga yaabaa inuu sariirta intuu iskaga seexdo markaad uurka hooyadaa ku jirtay cashadiisa inta cuno uu iska seexdo iyadu ma seexan waa taa haysaa isma gedin karto aad uma fariisan karto hadday socoto waad ku taagmaysaa sidii qorigii oo dhigihii caloosheedaad ku jirtaa hadday gaari fuusho hadday diyaarad raacdo hadday dhulka socoto hadday kursi fadhiisato adigii bay ku dhowraysaa dhibkeedii bay la hagooganaysaa xanuunkeedii bay qarsanaysaa cidna uma sheegan cidna wax kamay weydiisan cidna ma ay dhihin waxa laygu siiyo xanuunkeeda ilaahay unbaa qadari kara dhibka ay marayso ilaahay subxaanahu wa tacaala keliya ayaa og cid kaleeto u oge ma jirto saas darteed buu ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqeeda weynay jannadana lugaheeda hoosteeda ka dhig lugaheeda maxaa lagu yidhi lugteedaad ka hoosaysaa wa hooyada wejigeeda lama sinid madaxeedana madaxaaga lama simi kartid si taaganna horteeda uma istaagi kartid lugaheeda waa inaad fadhiisataa weeye ilzam rijlaha booskaagu waa xaggee booskaagu ma inaad hor istaagto oo saa ula hadashaaba maya booska aad leedahay oo aad u xaq leedahay waa lugta hoosteeda lugteeda hoosteeda makaankaagu halkaas waxaad doonto ahow ama ra'iis ahow ama maalqabeen ahow ama mas-uul ahow ama aqoon-yahan ahow waxaad doonto noqo makaanka aad leedahay hooyada markaad soo hor istaagto dadka kale si toosaad u hor istaagi kartaa laakiin hooyada uma hor istaagi kartid makaankaagu waa lugta hoosteeda ilzam rijlaha fahama aljanna waa haddaad janno doonayso ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka kariimka ah wuxuu ku sheegay dhibkeedaas saas darteed ayuu alle subxaanahu wa tacaala labada waalid markuu xusay si gaar ah mar walba hooyada loo xusay wawasayna alinsaana biwaalidayhi ixsaana xamalathu ummuhu kurhan wawadacathu kurha وxmlه وفصاalه 30 شhهرا suuradda kale ilaahay subxaanaه wa taعaalى wuxuu ku leeyahy ووصayna الإنساana بwaalidayh xamalathu أmه whنا عlى whن وفصاalه في cاamayn أn اshkur lii وlوaalidayka إلy الmaصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون الله سبحانه وتعالى hooyadu wuxuu sheegay midda nebiyada wanaagsan dhashay inay tahay midda saalixiinta soo korisay inay tahay midda dadka mujaahidiinta soo korisay inay tahay halyeyga goobaha ka hadla hooyaa soo dhashay hooyaa soo hayn jirtay hooyaa soo nuujisay hooyaa soo ciyaarsiisay hooyaa cunto soo siisay hooyaa kaadida iyo xaar ka soo dhaqday hooyaa dharka u gelin jirtay hooyaa soo soco halyeeyo dhihi jirtay iyadaa soo ciyaarsiin jirtay hooyadu waa waddada ay soo mareen dhammaan nin kasta oo tilmaaman oo saalix ah oo wanaagsan ama mujaahida ama caalim ah ama sheekh ah ama munfiq ah ama hani ah ama ra'iis ah ama geesi ah dhammaantood waxay soo mareen hooyay soo mareen hooyo dhabteeday soo mareen hooyo caloosheeday soo mareen hooyo naaskeeday soo nuugeen hooyay la soo ciyaareen hooyaa soo ciyaarsiisay macallinkii koowaad hooyo u ahaa
afka soo baray hadalka soo baray cuntada soo baray dhaqanka soo baray hooyay ahayd hooyadu saas darteed buu ilaahay xaqeeda xaqiisa ku xejiyey shukrigeeda loo mahad celiyana shukrigiisa ku xejiyey laguma xejin mahad celinta bani aadam kale laguma xejin laa cid kale waalidiinta keliya lagu xejin oo waliba hooyadu horeyso xaaskaaga laguma xejin caruurtaada laguma xejin walaalaha laguma xejin saaxiibada laguma xejin وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا عبادتي إلهي كبعد قد وحوك حجي الله سبحانه وتعالى والدين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلهي سبحانه وتعالى ويوك حجي أن اشكر لي ولوالديك إيه مهد علي يقول شكري أبور كيانكو أبوري الله سبحانه وتعالى وخلقك لها ثم لبدي السببت أها ولوالديك إيجا مركا كحيجة شكرك إلهي قفات كل شكرس إلزم رجلها بوس كاغو مركا والوقت هذا هوستيس ما مدحتاج كرتت هذا الكوما علين كرتت عندها حتى كوما حجين كرتت وجه جيدا سكداف إن لهذا الشو أو هذا الكذا كسر رياض كو هذا الشو inaad isla sinto xataa maaha horteeda aad isla sinto ma aha baarinimada ka mid maaha waa caaqnimo inaad isla sinto hadalkaagu inuu hadalkeeda la sinaado lama ogola inaad isku dhereriso lama ogola iska dhaaf inaad ka hato ama uf aad tiraahdo ama maxaad sheegaysaa aad tiraahdo ama waxaad ku hadlaysaa waa qalad aad tiraahdo taasu meesha ma taalo تاسو ماشا مطالو إذن إلهي سبحانه وتعالى وحنو شاقي نبي الله موسى قصة دي سوكا لمركا نفيرن سورة القصص هو يديس دورك أي كل هاي سيدا الله سبحانه وتعالى وقشيكي والول كي كقبتي والبهار كي كقبتي الله سبحانه وتعالى أيضا الله الله أبلا لما هالين أدير لما هالين walaal lama hadleen qabiil lama hadleen asxaab lama hadleen hooyadu la hadlay Allah subhanahu wa ta'ala wa awhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن
فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا